ugu horeyn way aragtay wayna u soo dhowaatay dhoola caddayn ayaynu ku soo jiidatay ayadoo farxad siinaysa waxa uu u qaaday dareen jacayl wuuna ku kalsoonaaday isagoo diyaar u noqday inuu darteeda u huro noloshiisa ayadana ay isku dayaysay ka faa'iidaysiga dareenkiisa jacayl si uu ugu fuliyo rabitaankeeda iyo danaheeda gaarka ah ayadoo jacaylka uu u qabo adeegsanaysa muddo ayuu noloshaas ku noolaa asaga naftiisa ayuu ka doorbidaa farxaddeeda ayaduna danaheeda ayay ka doorbidaa riyadiisa si ay uga hesho baahideeda ayay dareenkaas ugu abuurtay in uu fuliyo waxa ay u baahan tahay kadibna ay ka dheeraato asaga iyo dareenkiisaba wuxuu ogaaday khiyaanada ku duugan iyo danaysigeeda isagoo naftiisa dareensiiyey inuu ayada ilaawo laakiin ma ahayn mid uu awood u yeeshay waayo wax kastoo noloshiisa ku saabsan ayadaa xasuus ku leh wuxuu u xanuunsadaa si uu iskaga saaro xasuustaas beenta ku bilaabatay ayadana mar kasta waxay u dhoolo caddaysaa kuwa ay ku tuhmayso fulinta rabitaankeeda sidaas ayay nolosheeda ku qaadataa oo jacayl been ah oo raad ku reebo wiil kasta oo ay soo khiyaantay